deegaanka la yiraahdo Puntland waa deegaan Soomaaliyeed hadda ka horna waa ka hadlay dad macna badan dawladda macna u leh taariikh fog oo maxaan ku raad dawladnimo leh yaa degan waxaan rabaa inaan sheego raalli kama ihin dadkaas in uu nidaamka ka dumo iyo inay isdilaan intaba raalli kama ihin laakiin ifafaalayaasha muuqda wadada aan soo marno sheegay mugaan barbar dhigno ifafaalayaal fiican ma aha madaxda Puntland waxaan leenahay dadka iyo rabitaankooda tixgeliya ha ka talaabsanina kama talaabsan kartiin aad iyo aad ugu dhaganuglaada oo dhageysta meel dhaqan leh oo dhaqankeedu xoogan yahay oo siyaasiyiin maahir ah oo caam oo dalka laga yaqaano leh waaye siyaasiyiinta hala dhageysto odayaasha dhaqanka hala dhageysto ka bacdi dawladnimadu siday maamulka iyo dawladnimadu siday u adkaanayaan hala yeelo ka tala bixi maayaan waa huba kuna talin maayaan odayaasha dhaqanka deegaankaas joogay wax dawladda Puntland duminaayo ma ku talinayaan nimanka siyaasiyiinta ah ee deegaanka ka soo jeeda ee deegaanka madax ka noqday dalkana madax ka noqday Soomaali oo dhan madax ka noqdayna niman garan waaya ma aha wax dadka dan u ah iyaguna laga rajayn maayo inay tala xun ay ka soo baxdo ama afkooda ay ka yeerto laakiin maamulka waxaan leenahay u dhagan nuglaada dadka dhageysta wax garadka in dheer garadka dhageysta dad fiican mas'uuliyadda yaqaano xikmad dawladnimo leh ayaa deegaanka ku nool ee hala dhageystaan leenahay hadday yihiin odayaal dhaqan iyo hadday yihiin siyaasiyiin intaba odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka reer Puntland waxaan leeyahay 24 sano waqti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 ka sano la soo dhisay oo maalin walba meel marayay dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay laakiin waa in la isla fahmaa oo la isla qaataa Puntland markii ugu horeysay oo doorasho qof iyo cod laga abaabulo maanta ma aha horaa looga soo abaabulay oo la isugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo waana la mari waayay hadda ka hor haddana ma marayso dadka haddaanay raalli ka ahayn dadka haddaanay raalli ka ahayn ma marayso yaan dadka reer Puntland dhibaato gaarin magac iyo sharaf iyo haybaday leeyihiin yaanay ka dhimanin oo haybadu ka dhumin oo dad aan muxuu ah waxba garanay isdilayo aanay u ekaanin siyaasiyiintan leeh ka jooga ayeelinina maamulkan leeh talada haya maanta ka jooga ayeelinina odayaasha dhaqanka siyaasiyiintan leeh waxa maslaxada ummadda ah ka taliya weligiinba waad ka soo tali jirteen madaxweyne xasan sheekh maxamuud shalayto jimcihii masaajid ku yaala madaxtooyada dhexdeeda ayuu ka khudbadeeyay arrimaha Puntland ayuu soo hadal qaaday walaac daran buu muujiyay oo ah Puntland oo 24 sano jirtay inay 24 maalmood ku burburi karto ka xukuumad ahaan hadalkaasi muxuu idinku muuqday walaacaas madaxweynaha qaranka uu muujinaya maxaa keenay horta waan u cudur daarayaa madaxweynaha waa nin waayeela hadeer sida la sheegayna waa xanuunsanaya waxa gabadhiisa sababta ay gabadhiisa ula socotana waxa la sheegay in maartay xilliga maartay inay daawadiisa sido inay muxuu ahaa xilliga uu seexanayo xadidayso iyo xilliga uu shaqaynayo marka waa cudur daari nin waayeela weeye laakiin waxaan ka jeclaan lahaa intaan su'aashaada aan ka jawaabin madaxweynuhu sida hadda uu shaqaynayo si ka dawan inuu u shaqeeyo waxaan ka jeclaan lahaa inuu saaxiibadii halkan iska dhigo taladooda inuu aragtidiisa ku shaqeeyo waayo aragnimo iyo madaxweyne laba jeer buu madaxweyne noqday mar saddexaadna rajo kama qabo inuu madaxweyne noqon doono mana filayo haddii cibriguba ku simo inuu isu soo taagi doono saaxiibadiina han siyaasadeed bay leeyihiinoo dowladaha isaga ka dambeeya waxbay ka doonayaan ololayaasha isaga ka dambeeya waxbay ka rabaan isagoo madaxweynaha ololaha la geli doono kiisa mid kasoo horjeeday geli doonaan waxaan jeclaan lahaa jagooyinka uu hadda siiyey inuu yidhaah ku koobnaada talada laakiin aniga ii daaya haysta intaan idin siiyey laakiin talada dalka anay hoosta maaragtay hor taallaayo go-aan ka gaarayo hagaajinayo ifkayga aakhiradaydaba aan u turo dadku siday cadaaladda iga rabaan baan ugu talinayaa
taasaan kula talin lahaa isaga su-aashaadii haddaan usoo noqdo annaga noo muuqato xasan wuxuu ka hadlay waxaanay nooga muuqan khadar waadba way kuu muuqato dalka puntland waa ammaan democratization baa la aadayo maaragtay dadku way ku qanacsan yihiin ururadii siyaasaddu inay siyaasadda u tartamaan si fiican bay ugu qanacsan yihiin saxaafaddaad ka arki lahayd golayaasha fagaarayaashaad ka arki lahayd haddii aanay ururada siyaasadda ee han kale ee doonaya inay dalkan maamulaan oo madax ka noqdaan aanay qanacsanayn buuq intaa ka badan baad arki lahayd intaasina hadda ma jirto khatartaas xasan isagay ku kooban tahay waxaan u malaya wuxuu horseed ka yahay duulaan soo socdo malaa horseed ka yahay wabu noo sii sheegay waa mahad ilaahay marka iska maaragtay waxaa leeyahay waraabaha qayliye iyo ka aamusan ka qayliyaa la qaato waadba iska ilaalinaysa soo dhacayay baad oranaysaa marka intaan xoolaha usoo dhicin waa iska ilaalinayna waxay tahay duulaanna horaa loo arkay waxaa la arkay kuwii garaacad ka soo degay iyo doonyo wata hore loo arkay iyo ilaa garmaal iyo ilaa ka degay muxuu ahay suuj ka degay marka duulaanna soo socdo malaa horseed ka yahay waa la iska jiraa maaragtay waayahay madaxweynuhu uu xanuunsanaya maxaa ula jeeda madaxweynuhu waxa weeyaan inuu masaajid isa soo taago masaajidka ducaa laga rabay maaragtay dembi dhaaf ilaahay la weydiistaa laga rabay yacni siyaasad mala awaala in la miiso meesheed maaha marka wuu ku salaati sahwiyey baan qabaa yani intuu tukanayay buu ku salaati sahwiyey marka arrimahaas oo kale arrimaha haddii caafimaad darradu ay ka muuqato ayay ka mid tahay qofku inaan maadaama aan cidi farta u taagayn oo lala challenge garayn oo meeshu masaajid tahay أنا waxaan qabaa arrintaas inay caafimaad qab aanay ku imaan marka ma la dhihi karaa madaxweynaha dadka qaar reer Puntland siyaasiyiin waxay iyo dawladda rag kamid waxay lahayn madaxweynuhu dawladda Puntland waa soo habaaray habaarkii habaar uga jawaabaysa ma la dhihi karaa habaarkii habaar uga jawaabi mayne madaxweynaha habaar mayne waxaan leenahay dariiqa toosan Allah kugu toosiye madaxweyne waa madaxweynihii qaranka oo dad Soomaaliyeed dooratay oo dalkii xukuumay inaad xanuunsanaya dhahdo maxaa lagu macni karaa weeyaan madaxweyne ma horta waad garanaysaa baad ma khadar madaxweynuhu markuu Abu Dhabi tagay taariikhda wax ka xusuusataa socdaalkiisii ugu horeeyay Dubai tagay dabcan corona laga helay waana soo xanuun ma hadee ma ahayn astaamihii corona ma ahayn madaxweynaha wixii ka muuqday marka sawiradiisa la soo bandhigay ma ahayn astaamihii corona maxaa ka muuqday waxyaabo ka duwan baa ka muuqday aad u tiro badan baa ka muuqday oo aan astaamihii corona ahayn baa jirkiisa ka muuqatay inta badanna astaamaha corona ka muuqda waa waxyaabo ka duwan wax nooga sheegay dad ba ku daawanaya waxay soo dinay gali mayne taas hadeer laakiin ma ahayn maaragtay aragti caafimaad qabto masaajid leesla soo taaga ma ahayn dabcan in xog hayaad waa kayd hadda marka hadalkaaga waxaa tiri gabadh baa la socota daawadiisa sida uu xanuunsan yahay arrimahaas rabna dadku inay shacabka Soomaaliyeed ee madaxweynihii qaranka u arko uu maqan bal raba inay xitaa wax fahmaan mas'uuliyad ba ka saaray ay fahmaan waxa way madaxweynaha way bacda sudcaal intuu aaday baa la waayay gabigiisa wax sheegaya la waayay madaxweynihii magada garan mayna wax ku dhacay laakiin waad ogtahay qadar in la waayay madaxweynihii oo meel dunida dhul badan lagu sheego madaxweyne may Turkiga ku jira madaxweynihii caafimaad ba Turkiga may Jarmalka loogu qaaday muxuu cusbitaal Dubai ku jira waad garanaysaa intii la mala awaalayay marka haddana waxyaabaha muuqda in caafimaad darro muuqato waa ka muuqata waayo haddii madaxweynuhu caafimaad qabo u malayn maayo intuu masaajid soo galo inuu arrintaas la soo taagi lahaa yani si kale waxa uu yiraahdo oo maartay laakiin in uu yani statement inta la eg bilaabo oo yiraahdo 24 maalmood bay ku dumaysaa 24 ka sano wixii la soo dhisayay arrinta caafimaad kama muuqdo aad buu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta dawladda Puntland Maxamed Cabdi Dirir oo maanta barnaamijka marti soo martay aad buu